ninkan aad aragtaan ay ku ordaya ninka hubeysan ee xabadaha ridaya ayaa waxa uu noqday geesi dunida caawa laga hadalhayo. ninkan oo lagu magacaabo Axmed Al Ahmed oo ah nin Muslim Australian ah ayaa waxa la sheegay inuu si bareera naftiisa khatar u galiyay si uu u badbaadiyo dad kale. arrintan ayaa waxay ka dhacday dalka Australia maanta, waxaana la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 12 qof kadib markii dabley hubeysan oo argagixisaha ay soo weerareen dad joogay xeebta Bondi ee caasimadda Sydney ee dalka Australia. balse warbaahinta ayaa waxaa qabsaday ninkan geesiga ah oo aabba 43 jir ah kadib markii uu naftiisa halis geliyay si uu u badbaadiyo dadka. geesigan lagu magacaabo Axmed Al Ahmed ayaa waxaa la sheegay inay dhaawac ka soo gaareen markii uu ninkii dableyga ahaa isku duubay uu kadibna qoriga ka qaatay. gacanta ayaa waxaa la sheegay inay dhaawac ka soo gaareen laakiin dhaawaciisa uu fudud yahay haddana uu isbitaalka joogo. walaalkiis oo la hadlay warbaahinta Australia ayaa sheegay in haatan lagu dabiibayo isbitaalka xaaladiisuna ay fiican. falkan oo la sheegay inuu yahay fal argagixisaha ayaa weli baaritaan ku socdo, waxaana la sheegay dableydii soo weerartay mid ka mid ah inuu dhintay, midka kalena xaalad adag uu ku jiro. waxaa kaloo la sheegay in mid saddexaad ay booliiska raadinayaan. wixii warkan kusoo kordho waan idinla socodsiin doonaa. wixii faahfaahina waxaad kala socon doontaan boggeena The Somali Angle.